بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu dhacday arin aad u cajiib ah oo runtii aan kala kulannay ciidamada booliska Soomaaliland qaasatan kuwa Hargeysa saldhigga qurac dheer maalintii Jimcihii ayaan anigoo inaan dhaawac sida oo raba dhaawac muujin si aan referta uga qaado saldhiggaas oo ay arintaasi qusaysay oo xafadiisa ka dhacday ayay askartii gaarku igu yiraahdeen gaariga baarkin ka dhig halkii hore dhigay baan ka qaado halkii igu yiraahdeen dhig baan dhigay inaan yarba igu soo dhaqaaqay oo ciidanka kamid oo kuwii gaarka ku jiray kuwii kale meesha fadhiyeen marka askarigii igu soo dhaqaaqay bay igu yiri waad kibirsantay taada yarwan ku aqaanaayo dabeetana waa maxay kibirka malcamada la igu ka keenay si fiican ilaahda soo gaariga imaad ran halka ka dhaqaajiyo halka dhig halkina ma dhig maxaad kala darta miyay kibraniyad baatay deegar darra cadaan oo aan miyana kula hayn haystaagin miyana warwal qof dhaawacaan sidee miyana saldhigga baarinkiisa ayna halkan loo istaagin loo ma istaagin marka hay halka ugu tiriimka istaag ma istaaga maxaa waad edab darantay war hay caayna diga edab darane loo xanday xijaabkii oo bay soo qabtay markuu xijaabkii soo qabtayna waxaan ku yiri war naga qaad faraa markan isagii ku jeestay isagina day igu dhigeen anagana is qabsanay gabadh baa soo dhaqaaqday gabadh askariyada buuyadana ku yiri noo kaxee gabadhii baa iyaduna babiga ka siisay oo anigii iyadii isagii baa wada qabtay laba askariyo kalena way noo yimaadeen saddex askari iyo gabadhii uu u yeeray oo markaa anigu gabadhii uu is qabsanay bay saddexdii askari bad dushiga dilay hooyo gaadhigii iga dambeysay bay iga soo daba degtay hooyadii markii iga soo daba degtay waarna seeleedi miyaad dilaysaan tiri iyadina waa la igu soo daray oo iyadina saddex kala qaabishay hooyina saddexdii askari baa halkii horteyda ku dilay hooyadii bay xanuunsanaysaa li habeen baan dhakhtar ka soo sukiin dhakhtar ka keenay anagii halkii baan lagu laayay waliba intana la jiiday oo dhulkana la jiiday oo waxaasi dhulkii ciidii yihiin ayaa jiidniinkiina lagu galiyay gudaha markiina la galiyay gudaha hore markiina la galiyay ayaa waliba naloogu daray in maxaan ku dhahday obiga dhexdiisina lagu garaaco anagu dawarka maanan hayna nin baa markaa lahaa war ka daaye taliyaha saldhiggu sidaan markii dambe ku warheli doono xanuun buu ku maqan yahay baa leeyahay xanuunsanaya taliye ku xigeenkii weeyaan ninkan la leeyay ka daaye la maqli waayay lix askari iyo gabadhii ay u yeedheen toddobadii baa na jilciyay aniyoo idayno la jiidayo oo marina halka xijaabadana xidhnaana laga dhigo timina la jiidayo ayaa gudaha hore la geliyay oo biga markii la geliyay feerjilbiye waxaana lagu qaraacay gacan ciidan baana martay askartuna dadka way iskugu tagaa inta waxa noo dheeray gacanta ciidanka in ku dhacday waxa noo dheeray in inta maxaa la yiraahdaa garka saa u qabteen hooyadii gidaarka saa ugu dhufteen oo sida ragga u feerfeeran ilaa imkana nabaradii ku yaalaan sawiradoodina aan hayo imika waxa lagu leeyahay dhakhtarka Al-Hayaat socodkan guriga igu timaadeen si iskaan loo soo mariyo waxay qabto ana kii markii meeshii laga kabiyo wixii oo dib marka hore banaanka laga soo dhacay bay soo xareysteen telefoonkeeda dhulka iga dhacayna inta dhaawac ahaydeen wadnay lafteedii ayaa qaatay gudihii hore la geeyay markii gudihii hore la geliyay waana la xidhay maqsinbaan lagu soo qufulay markii maqsinkana lagu soo qufulay ayay maxaan ku dhahdaayay inantii oo dhaawac muujintii ay siiyeen deeyo ay anagina naga xareeyeen oo aan cid meesha ka qaadaa jirin ayaa anagii noo timid oo tiri yaan dee la hadlaa waa tan laydin xidhay waxaan anaa ku cidna la hadlay telefoonkayga hadaysay ii dhiib shabagaani ii soo istaagtay telefoonkii baan soo qabtay dee dad baan garaaco waxaan doonayaa nambarkii jananka inaan helo maadaama anigii hooyadayba dilnay waxaan jananka ugu eeranayay dee waxaan islahaa waa maaragtay xubintii ugu sareysay oo halkaas cadaalad ka heli kartaa waxaan ku war helay in generaal dabagala maqan yahay cidii markaa dee nambarada ka raadinayay waxaan weydiiyey in jirto cid kale oo aan la xidhiidhi karo oo ciidanka lagaga sii tagayo kasii mas-uul maadaama jananka Jabuuti ku maqan yahay waxa la ii sheegay in la yiraahdo Cabdi Xasan Qarbash inuu yahay ku simaha jananka
inuu yahay janan ku-xigeenka isla markaa imikana uu sii yahay janan ku-xigeenkii iyo ku-sameeyey jananka ciidanka waan garaacay oo iga qaban waayey intii inantii meesha taagnayd baan tagay soo dira waxaan ku yidhi taliya waa gabadh sidaasa oda garays la yidhaahdo waanu xidhannahay markaa telefoonka iga qabo waana nala dilay telefoonkiibuu igu soo celiyeyba waan ka qabta waxaan ku yidhi taliya waxaasaa nagu dhacay waana la dilay anigii hooyaday waxaan u soconayna waxay ahayd inaanu gabadha muujin u qaadno wixiiba laakiin waxaa kasoo soko martay de gacan ciidan baa nagu dhacday qol baana loo xidhay feerjil baana lagu garaacay si cadowtinimo leh oo ciidanku isgarab siinayo oo ciidamada booliskuna dadka way isugu tagaan qof kastoo shicibina taa wuu ogyahay oo gacan ka simano xitaa haddaad go'do la isleeyahay yaanay shakhsi gaara loo raacin ayaana loo dilay anigii hooyadayba waxaa dhacday marka ninkii sidii ugu sheegay wuxuu igu yidhi haye iminka lagu howlgelayaa aadna waad mahadsantahay adeer haye adeer adigaa mudan dee waxaan islahaaba cadaalad baad gaadhay oo madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirtee haddaad janankii weyday dee janan ku-xigeenkii baad heshay janan ku-xigeenkii markii aanu la hadalnay uu yidhi cid baan idiin soo diray oo lidin howlgelaya waxaa noo yimid taliyaha qaybta bariga muse xasan kaahin la yidhaha intii aan anagu waxaanu qabno nala eegin oo aan nabarada iyadaa aa arkaysaan cidina u jeedsanin iyo kuwo kaloo jidhka ah oo meelahana laga dilay dhabarka iyo caloosha u badan tahay si aan nabar muuqdo kalena loo ku arag oo dhaawac muujinta iyadana aanu hablaha dhakhaatiirta atusna ay ku caddahay ayaa naloo soo diray markuu noo yimid taliyihii qaybta barigu hal shaqoo quru qabtay waxaanu qabnina lama weydiin si ay wax u dhaceenna lama weydiin halka shaqo qurahayda la qabtay waxa idin la ogaado sida aan ku helay telefoonka sidee gabadhan telefoon ku heshay iyadoo saldhiga ku dhex jirta waana la baaray siday ahayd baan ugu sheegay waxaan ku yidhi taliye maadaama anagu ciidan ka rislaynay oo aanan ku eeran karin oo aanan waxba kala hadli karin annaguna marka hore aanu meesha dee cabashayinaan dad dhaawaca wax laga siiyo u keenay waxaanu anaa la xidhiidhay janankii markaan weyne janan ku-xigeenkii baan helay adigana sababtii iyo sifada lagula soo hadlay waa taas cid kaloo aan ishkateeyey cidan meel u marina ma jirto nimankanaana jaray taliyahoodina waa kana wuu taagnaa oo ka daayay buu lahaa isagaanay amar diiddo ku sameeyeyna waa kana weydii waxaan ku yidhi telefoonkaygiinbaa prioritiga la siiyey annagii dhammayna dhaawac ahayn iyo hooyadaydii meesha taallay iyo annagii hadlaynay iyo anigii soo cawday iyo anigii u xidhnaa nimankii la dirayna dilay laftoodii midna wax kasoo qaadna laguma samaynin telefoonkiiba muhiimadda siiyey taliyii oo naga baxay subaxii markuu aagu bariyey intii uu inankii yaraaye gaadhka ku jiray cadaadisna saaray uu diiday in xataa cuntona loo keeno uu diiday xataa in maxaan ku idhahdayay qof noo soo galo oo sidan wuxu qabnana la eego waxna la weydiiyo baa subaxii markuu aagu bariyey dadkii isku wada yimaadeen faamiligii iyo maxaa la yidhahdayay dee niman kaloo aanu la hadhadalayo iyaguna ciidan ah waxaa kaloo noo yimid ururka soolja iyo madaxda telefishinka horyaal iyo gudoomiyaha ururka soolja iyaga laftoodana way arkayeen wixii meesha ka dhacay gudoomiyaha soolja sakariya iyo madaxda telefishinka horyaalo markii aan anagu ka tirsanaa markay noo yimaadeen ay maxaan ku idhahday inay yidhaahdeen waan u gelaynaana inanka yara gaadhkii xitaa inta liya qaybeedka loogu dhiiba telefoonka wuu diiday annagana waxaan ugu dhacday gacantii ciidan waxaan ula heshay gardarre garab og oo waxaan qabnay baan cid yeegini telefoonka iyagii annagii muwaadiniinta ahayna ee soo cabanay ee islahayn dee madax meel ka saraysa ma jirta janankii baad la hadashay uu maxaan ku dhahday telefoonkii naga qiimo badnaaday oon sidee wax u qabtaana oo la odhan oon rifeertana la siinin subaxii baan ku darinay in rifeertana la siiyo oon idhi annaguna waan dhaawacnay rifeertahana la siiyo taliyininkii oo biig maxaan ku dhahday ku yidhi rifoortooyin si nabaradana habla askarana loo soo diroona eegay sidii baa rifoortooyinkiina lagu siiyey si dhakhtarna cidinamay geynina looma ogolaanin taliye ku-xigeenkii ciidanku ee markaas saldhigga joogay ee arkayay inay ka daaya lahaa ka daaya wuxuu sameeyey si dembigeegii loo dambebeso in 3 askari oo ciidanka ka mid ah rifeerta la siiyo oo anigiiyo hooyaday oo markii aniga la dilay gaariga ka soo degtay si dembigeega loo dambebeso ciidankii baa rifeerto in la siiyo dhakhtarkii loo diro waxay qabaana soo sheegaan oo hana la tuso annagu waxaanu qabnana cadayn baanu haysanaa
markii aan siideyntii la taagan yahay subaxii la yiri maxaa la yiraahdaa idinkuna waa dagaalanteen iyaguna waa maxay waa kana aan anagu deetana maadaama hooyaday saldhiga ku dhex matagaysay aan abaalba ku qabiinan maadaama kiniin aan loo soo dhaafin karno inankii yara wali gaadhkii joogo talakicigeenku awoodna u yeelan waa inuu xitaa naga bedelo oo ama uu yiraahdo war waxa loo sido baadhuna u siidaa oo hooyaday saldhiga ku dhex matagaysay waxaan sidhiyaad seersanin saldhiga anigu haday aniga ahaan leed kama baan soo baxeen inta jananka ciidamadu imanayo ee arintaydu dhinacuun u dhacayso laakiin hooyadii xanuunsan oo 6 ishaan dhakhtar ka soo sokeynay oo waraaqaheedii dhakhtarku gaariga noo saaran yihiin in maxaan ku dhaadayay inta loo diiday in xabad kiniina dabada looga soo galiyo waxaan sidii aad seersan hooyada halka ugu dhimanin gacantaas imaniyo safiinkaas loo dilay oo cid gaar ah ma raacanaysidii dabeetana waxaan ogolaanay in la sii daayo bal si aan la maaragtay hooyadii ula tacaalo markii la soo daayay ee aan maxaa la yiraahdaa qolkii ka soo baxnay ee ay ahayd inaan kadinka ka baxno ayana la ku qasbay inaan qorno nootaayo aan anaku dambi geystayaal nahay dib geystayaal ciidankuna dhibana ka yahay warqadii baa la soo qoray waana loo keenay waana akhriyay waxaan ku dhimaanaga dhibanayaal ma waxa doonaysaa inaan maryaha iska bixiyo nabarada igu dhufateen idin tuso masaas ay ga rabtaan miidan hablahan jirkayga soo eegay iyo jirka hooyada eegay aaminaynin maanaga dhibta waxa la yiraahdaa macnaha waa eedaysana qofka qof ka gardarani laakiin dhibare iyo dhib geystay waxa la yiraahdaa nabarada meesha yaal cidda dhibta loo geystay iyo cidda geysatay nabarka markaa meesha yaala ayaa la yiraahdaa anagii baa dhibanayaal nala soo dhib geystayaal lagu soo qoray ciidankuna dhibanayaal buka aha qasab waxa nagu noqotay intii naga saxeexo dhulkii nala jiidayna waa kan naga muuqda iyo sidii saldhiga noogu xareeyay iyo in feerjiribna lala dhacay oo sidii ragana loo laayay kuwaas u saalan kuwa jirkayga ku yaala telefoonkaygan ka tusi kara cid kasta oo baahata waxa nagu dhacday waxaan inaba caadi ahayn wixii nagu dhacay waxa soo soo ka maray xilligii laga wada hadli lahaa iyo xilligii gurmadiye gargaar noo iman lahaa daanigu cid kale ma filin maadaama jana ku xigeenkii ciidanka Cabdi Xasan Qarbash garaacay oo waxaan isla dhaba telefoonkayga yaalo oo haddana intii musaxsanka ay noo yimid telefoonkayga la garaaco waa nambarkaaga iyo keenta lay guro maxaad qabtaay adeer sidii wax ku gaadheen iyo ku dilay iyo miyaan meesha tariyuhu joogin iyo midnaba aan wax ka soo qaadan ka sameeyne de gacan ciidan ugu dhacdo dabeetana waxa igala weynaatay in ciidankuna dilay waxa igala weynaatay inaan janankii nambarkiisa helay oo nafka la gaaray oo wixii anigu dibi ku soo noqdeen aan waxba kala la ii tarin ciidankii waxaan u arkay gardarre garabka yogina waa janan ku xigeenka ciidanka oo aan anigu la hadlay oo aan waxba kala loo qaban markii dambana lagu qasbay si aan hooyaday ula tacaalan cisbitaal oo la idinka gurigeyga yimid hooyaday waxa lagu la maqayaa xayaat cadeynteedina waa idin soo bandhigaya si aan ula tacaalo hooyaday aan abaal ku qabay inaan dibgeystaha anigu ahay bilowgii inaan keeri garasho uu garanayo iyo ciidankuba naloo dilay oo nala yidhi inayro kibraaniyada baa tahay bal anigu waxaan ciidanka ku sameeyay iyo waxaan qaranka ku sameeyay iyo waxaan ku dhimanay iyo maxaan ku dhahdaayay waxaan gaaray ciidan u raacayno haddaan inamadii raasi shakhsiye iyo reerahoodii u raadsanayno iyo haddii ciidanku qaranku dhibtii nagu dhacday qaadanayo anagu ciidanka qaranka waan ku soo yeeranay oo dad bukaan u keenay oo nabar ku dhaceen markii dambana anagiiba janankii ku sii yeeranay oo isniiri maxaan ku dhahdaayay muwaadinad batay wadankeedii joogtay hal gula tacaalay janankiina waxa dhabankayga waxa ku yaala waa dharbaaxooyin rage waxaan si degdeg uga filaynaa inay noo soo jawaabaan ciidanka qaranku cid kalaba ma filayo in jananka ciidamadu haddii wadanka ku soo laabtay walaanan xog ku haynin uu noo soo jawaabo haddii kalena dee warbaahintu ka arki doona waxa nagu dhacay waxaanuna marti uga nahay inuu halkaa noogu yimaado waxa nagu dhacay nala eego waxaanuna marti uga nahay inta ku xigeenkii ciidanka in ciidanku amar diido ku sameeyay oo maxaan ku dhahdaayay wardaay lahaayeen la deyn waayo la dilay naloogu dhaariyo hadii ay maxaan ku dhahdaay la deyn waayo 7 askari na dul mareena oo isagu marag noo furo hadii ilaa anagu ciidanka nibada shicib la isku ma dhaxlayna saldhigaan isku laynay hadii maxaan ku dhahdaa oo lagu dhex dilay hadii maxaan ku dhahdaayay anagu dambiga leenahayna laamaha cadaaladana loo waafajiyo hadina laga gardaran yahay in inta la dilay waliba qolna lagu xidhan waliba janankii garaacana waliba anaga la baaro ka xabadkii inay dabada uga soo gashay hooyadii la diido
annagina maxaan ku dhahdaa sidaa dhabankayga iyo jirkayga rag u galo nala dilo hadday dawladdu daacad ku tahay oo sidaa rabto oo la isla ogyahay oo inagu jana ku-xigeenka ciidankan u dacwoonay war degdega oo aanu shakhsi dadku u weerarsanayno hana loo soo sheego oon reerahoogiyo iyaga raadsanayno haddii aanu dawladda cabadayaal u nahay oo aanu dawladda dhibanayaal u nahayna dawladda jawaab degdega hana soo siiso fariintaydana waxaan rajaynaya inay gaari doonto jananka ciidamada iyo cid kastoo ay qusayso waa intay janan ku-xigeenkii waddanka jananka ka sii ahaa arxanba kalemaanaan kulmin jilbahana hoolan cid kastoo caddayn u baahata waan u haynaa jilbahana hoolan gacmahana hoolan jirkaana laga dilay sidii wax maaragtay cadaawo ah oo la garasho dilay waa hoda garays bay isku lahayn markay dilayeen timahayga safaraa kula tegeen timahaygiiba faraha kula tegeen marka haddii ay maxaan ku dhahday dawladdu waxaa kula socoto oo lagu wada socdo war cadaan ah nala soo siiyo oo aan anagu deeskaya wax u qabno haddii si aanu dawladda dhibanayaal u nahay markii horena aanu xarun dawladeed nimid oo aanu xarunta dawladda ku soo eeranay oo aanu dawladdeedii u nimid oo aanu islahayn waxa laydiin qabto oo markii dambena aanu janankayagii la hadlay wixii nagu dhacay oo waxba nalooga qaban waayey dee anigu meelay ka socoto madax meel ka sarrayso la salaaxaa ma jirtee meelay ka socotoon maanta u dacwoono oo nabaradeedaa u bandhigno oo aanu maxaan tolay nidhaano waxaasaa nagu dhacay waxaa kaasaa u sahlan nabarada jirhkayga ku yaal safayn baana lagu dili inaanu namadii raray namadeeda u dirno waanu heli karnaa saldhig waa kay xaafadayada inaanu si kaloo maxaa la yidhahdayy waanu intaba waanu heli karnaa waxaasaanu rabnaa bal cidda ka dhiman laamihii cadaaladda maadaama jana ku-xigeenkii gaadhnay cidda ka dhimanna inay arrinta nala ogaato waanan wadayaa mar qura ma aamusaya inta arrinkaygu meel lagu tiirinayo ee hooyadayda la dilay qaliin baa lagu samaynaya hooyaday 6 habeen baan magaalada joognaa dhakhtar baan ka keenay waxaan ku feerjirib iyo hidh baa lagu garaacay inta qolkana lala galay baa gacan ciidan ilaa aan baralaati noqonay aan laga tagin intii aan firfircoonayna ay daan nala jilcinin baa dhulka nala jiiday markaanu galay maxaa la yiraahdaa qolka oo biigana feerjirib iyo hidh inta nala xidhay maxaabiista meesha ku xidhan baa noo maraga intii dhulka nala soo jiiday wixii nagu dhacayna markii meesha lagu xidhayna taliyaha noo maraga kitaab quraan aan ku marinayna inaanu oran ka daayo oo wixii nagu dhacay u taagniin oo sida ragga inta timaha taana loo qabto sida calooshayada iyo dhabarkayaga calashaan ciidamada booliisku waa ciidankii dawladda ka dhex yimiday waa ciidan dawladda u shicibka u xil saaran shicibka la'aantoodna wax ma noqon karaan ciidanku qoriga inanka yaraa ku qabsada nin iyo nin labada gacmood isula yimid bay noqon karaan family ahaan baan u qabsan karin isla qurac dheer shalay markii inta hooyaday lagu dhex dilay nimadeedu banaanka ka joogani hooyadina dhiiga tufaysay gabigiisaan la wareegi karnaa inay yar walba inay yar qori loogu diri karay laakiin waxaanu niri bal waxaynu ku dhacay waa aragtaa inaan inagoo diloon noqonin dad iyagii dilan haddana laga gar helo cid kastoo noo timid waana laga ilaaliyay xabadkin inay noo soo gashay waana laga ilaaliyay 8 saacadood inaan musqusha tagno waana loo diiday 23 saacadood baan u jeedaa 23 saacadood dinka ka jarto 23 saacadood inaanu xorriyad musqusha ku galno waana loo diiday inaanu maxaa la yiraahdaa kaniina loo keenay waana loo diiday biyihiina loo keenay waa la warsaday si meesha duqaan bay leedahay in gaas ay tahay loo warsaday gaasta liido ka kala yaa maxaabiistii meesha noo sheegtay waxaan loo dhaqmisiin naadantinimada ka baxsan waxaasna anigu waxa ugu badan inuu aanay wajin ku xigeenka ciidanka wixii nagu dhacay markay nagu dhaceen haddii cadaalad heli lahayn isagaan u dacwoono kaaleedaan ku banaalaay haddaan cadaalad heli lahayn ma aanan damqarin oo axmaanaan idhaahneen laakiin marka telefoonkayga aan meesha ku dhaxaystay waa gabadh calashan warbaahin ka shaqeysa oo telefoonkayga dhibtiina haysatay ka saameyn batay dawaan dabqanay mar qurana aamusameyn intan waa sahaalay ururka saxafiyiinta Soomaaliland baad magacowday inaad la xiriideen markii aad la xiriideen maxay sameeyeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland marka hore sidoo xeerku yahay waa inay meesha hawshu ka dhacday yimaadaan oo ay la xiriiraan cidii madaxda ahayd haysatay si ay u hubiyaan wariyaha laftiisu inuu dambiile yahay iyo in wariyaha uu dhibana yahay oo dambi laga galay sidii bay sameeyeen oo saldhigii bay noogu yimaadeen si daadad qaldan tahay oo adreerkiina reer islaynayaan raacday warbaahinta kuma difaaci karto laakiin marka aniga la igu hoda garaysa waan ku naqaanaa waad kibirsan tahay meeshii lagu dilay aan xire ciidan nimid aan anagoo cid soo laynayna keenin aan gaarigayga iyo lugahayga ku tagay waxaan xaq u lahaa in la ii hadlo la yiraahdo maxay sameeyay maxaa lagu dilay ku dhinteen waliba anigii hooyadayba
markii ay yimaadeen ay yidhaahdeen waxay qabtaan oo eegno waxa loo diiday inay iba soo galaan inanka yare kadinka joogaya askarigii wuxuu yidhi maba xitaa taliyaha qaybta inay telefoonka ugu dhiibaan bay dooneen waad weydiin kartaan Solja iyo madaxda telefishinka horyaalba waa laga diiday waxa la yidhi ma galaysaan telefoonkana ku hadli maayo marka ma waxay idiin sheegeen wax ka gaaro aan intan ahayn baa jiro idin dhex maray markii hore de wallaahi anigu wax horo dhal ciidan baan ahayo dadka ciidanka ku soo degdega kuma jiro dadka qaar baa laga yaabaa inay ciidanka isaga kibraan iyo waxaas anigu wax gaar ah oo aan ciidan weligiiba de ka galay iyo waxaan qaranka ka galay toona garan maayo oo aan ahayn in maxaan ku dhahday deynamadu ilaahay waad kibirsantay kibirkan meeshan ku galay baan xitaa garanaynin waad kibirsantahay askariga ay taliyuuna uu maqlay dadkii meesha taagnaana way maqlay waana ku naqaanay inay kibirsan baa tahay bal waxaan ku kibrayay aan sameeyay la rabo maxaan ku dhahday iga rabay aan ku wixii waxay gala cuslaatay waad kibirsanayday waad kibirsanta waan ku naqaanaa hooda garaysay ayaan horta ku dhintay oo lagu dilay hooyadiina dad qof ilmihiisa saddex askari ku fadhiisteen ay noqoto way adkaysan weydo waarnanta ay gadilna markay tiriyadina waa la igu daray markii dambe inta qol nalala galay oo bigo albaabka naloo xidhay ayaa feerjir lagu garaacay marka de wax anaga hore oo anagii ciidanka noo horeeyay de iyaga la weydiin doonaa la iyagu arrinkeena marka sababta macnaha sida lagugu sii daayay ma qaab dhaqan baa lagugu sii daayay qaab noocee lagugu sii daayay oo saldhigaad uga soo baxday waxaana lagu sii daayay qaab dhaqan markii horeba horta aniga familygayga oo dhan way yimaadeen xildhibaanana way yimaadeen si ay damaanad noogu qaadaan laakiin waana la diiday waxa ugu badan in lagu sii daayay in looga faa'iideystana waxa weeyaan horta iyaga maslaxad ka qabay imka ciidanku inay sii daayaan cadeymana waan u hayaa iyaga maslaxad ka qabay ciidanku inay sii daayaano waxay rabeen si aanay arintan u bixin oo aanay maxaan ku dhahday meel u gaadhin ila waxay ogaaneen qaladkoodii iyo wixii jirdilka nagu dhacay marka si aanu arrinkoodu u bixin iyaga horta in la sii daayay mas'uuliyadeeda qaaday marka koobaad oo yiri waa la in sii daynaya taliiban oo imid ugu yiri aniguna waan iska dakayn lahaa waxaan oran lahaa halkaas aan ku jiray waxaan ku dhimanay iyo wixii saan loogu galay alla keenay iyo wixii nagu dhacay waxa meesha igula jirtay hooyadayo aniga bay iga dilnin badan oo waxaan marka horena xanuunsanaysay oo feerjirib iyo hil lagu garaacay oo nabaradii ku yaalaan oo sida ragga loo dilay oo safayn ciidan maray oo saldhigi ku dhex matagaysay oo naloo diiday dabadana looga keeno kinin ay liqdo gaarka waxa ku jiray dadkii aan markii hore islaynayo in muddo gaban ugu ahaa kuwii uun baa diiday in maxaan ku dhahday ilaa subaxii iyagu baa gaarka ku jiro lama kala wareejin kuwii uun baa diiday waa kuwan Solja diiday waa kuwan xuqaasha la diiday ku sheegayo waa kuwan diiday maxaa la yiraahdaa in de meeshii aanu layda u soo baxnay iyagu baa iskood noo sii daayay oo yiri maxaa la yiraahdaa idinkan waa la sii daynayay wixii qabteen qaata ciidankuna waxay qabeen ha qaataan laakiin waxaan ilaahay baa horta mara galay waxaan de cid kasta qusaysa halkan u marinaya laba dumar oo waliba la kala hor qabsadaan isku mar gacanta qaadin anoo leydilay hooyaday timid oo midna saddex ciidan ay dusha kaga yimaadeen tii kalena markay tiri waarinanta iga dilina saddex kale iyadina qabteen intay gaarsiin karaan 7 askari 7 askari waxa kamid ah gabadhina dhirbaaxday waa iyadu halka intay soo istaagtay lagu rikxay oo bilaadiriis ahayd oo dhirbaaxday iyadu ayaa kamid ah laakiin 6 askari oo rag ah ayaa najilciyay oo saddexdii dilay baa anigu markay isu yeeranayeen magacyadooda maqlayay Cabdi Xamiid iyo Umar Iid iyo Rabiile oo akan marka ugu horeysaba nagu soo kacay aniga ilaaha wada dab daran tahay waliba aflagaadooyinkii noo geysteen rag baa maqlayay iyana aniga ilaaha in yaro kibirsan baa tahay marka bal ciidankiina dhibanayaal baa laga dhigayo referta la siiyay si dambe bas loogu sameeyo ciidankiina waxay qabaan hala yimaadaan laamaha cadaaladda annagina waxaanu qabno waanu la imanaynaa bal hadii lagu wada socdana waanu arki hadii ay tahay unde xeradhan oo qaldantayna waa xeradhan oo qaldantay taliye xigeen taagan oo ana markiisa la qaadanay hadii taliye xanuunsanayo meesha taliye xigeenkii baa taliye ka isagana taagnaa kadinka waxaan ugu nimid istabta ugu horeysa barkii ay nimadu najiidanayeen wardaay war dumarka sii daayay bulaha hadii uu taliye ay arrinka lagu wada socday
oo ay ka midaysan yihiin hablaha la laayo dumarka la laayo dadka la laayo oo ummadda la isugu tago safayn lagu dilo dee waa iyadu waa mid gaara haddiise ay tahay in maxaan ku dhahdaayey dee ciidankaasi qaldamay oo gef iyo gardarrana lagu dilay oo janan ku-xigeenkiina tallaabadu qaaday tan tahay in la sii daaya xitaa halkaasay kasoo fulaysaa si nabaradayadan iyo xaqayagan loo duujiyo dulmi meesha uga dhaco marka haddii arrinkaa lagu wada socdana dee waa arrin aan ogaan doono haddiise aan lagu wada socon oo meeshu ay maxaa garra ka kala sarrayso leeday oo cid loo cadaalad doonto leeday oo cid loo cawdo leeday oo cid dadkay hagardaamooyinku gaadhaan ku soo hirataa meesha jirto anaka waxna loo qaban doonaa waa gartay ururkii soolja markii loo diiday tallaabadii xigtay ay qaadeen inay warbaahinta ama la hadlaan ama madaxda kale dowladda la hadlaan taasi miyaanay samayn maya tali ku-xigeenkiiba ka hor yimid oo yidhi soo hodoo ma socotaan haa hooda iminkaanu sii daynaynaa waatan arrinkeedii waan u taaganahayba waa markay intee in leeg taagtaagnaayna banaanka lagu hayay waxaan u malaynaya inay subaxii yimaadeen shabagan kasoo dhex harkeyna lagu xidhay waxaan u malaynaya inay subaxii yimaadeen 8 iyo dheeraad xilliyada ay meesha ka tegi doonaan ay taagnaayna waa salaadii duhur annagana waa tan iyadoo iyagii la yidhi waa la soo daynayaayo anigoo aan idhi nabaraan qabaayo laakiin waxaan ku qasbanahay baan ku yidhi waan la hadlay guddoomiyaha soolsha iyo guddoomiyaha telefishinkii horyaalba waxaan ku yidhi waxaan ku qasbanahay inaan meeshan ka baxo wax gardaraday doontaa ha igu dhacday oo ay tahay hooyadii xalay oo dhan bay ku dhex matagaysa maqsinkan shabageli in la meelay kasoo gelaysaa jira waana nala dilay ciidankaana dilay cid kale ismaanaan laynin marka annaga lafteeda wuxuun baa naloo xidhay oo wax walba naloogu diiday si aanu laydhaabaa lagu qabno waanay dhacday marka mar haddii la yidhi waa la soo daynaya dee dib iyo nabaradayadii inaanu caddayno iyo in maadaama aanan markii fidhiyo duubin aanay markii dee balaayo aanan dadku talagalay ahayn oo caddayma aanay haynin soolja dee dib wixii aanu kasoo caddaysano iyo waxaana lagu xidhay labadaba inay ogaadaan unbay oy ka hadlaan unbay muhiimadu ahayd labadiibana meeshii markay yimaadeen nabaradayadii way arkeen anigii hooyaba waxaana yidhaahdeen de haddii laydin sii daynayo waxa qabtaan un soo caddeeya ciidankiina waxaanu abaal ku qabnay inayna yidhahdaan waxaan qabtaan isu qaba waxaan qabnona aan isu qabno laba dumar intay 7 askari gaarsiin karaan oo weliba xijaabka intana lagu baktiyay markii dambana laga saaro timahana la jiiday marka horta ilaahay baa xaqa qaada laakiin soolja nooma yaraysanin nimankana waa weydiin kartaan gudoomiyaha horyaalo noo yimid iyo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland sooljo oo noo yimid labadaba waa weydiin kartaan waxaad odhan kartaan maxaa meesha kala kulanteen dee inanka yara gaadhkaababa iyaga caascaasay oo taliyihii waxbaba ka qaban waayey oo markii dambe taliyuhu yidhi inantii waa baxaysaa yidhi dirayskaba waan dhigaya oo gebigoodii waxaan ku yidhi halkaa la istaagay oo meeshuba maxaybaa meeshu markaasaan dee ciidankaa malaa hore isu sii laayee horta hooyadaadan xanuunsanaysa aad ugula baxa annagu intaasaanu kusoo baxnay abtunowna saldhigii haddii la yidhahdo kusoo noqo iyo haddii arrinkayga meel la saarayaba waan ku noqonayaa hooyaday caafimaadkeeda unbaanan laydha ii soo saaray cid kastoo aan isleeyahay waxbay kuu qaban kartaana haddii jananka yimidna xafiiskiisaan ugu tegi doonaa warkaygana uu gaari doonaa haddii aanu imanna markuu yimaado ayaan la sugi doonaa amuurtan ugu dhacdo aad baa umahadsantihiin